kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. Dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada. Hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka ana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan. Waa mahadsantiin. Kaatu kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. وعنا وناكسن إن شاء الله ما أنت واحد كهذا الدونا كالي ونهرنا وصل هذا الني قيبة كميدة قيبتنا هو introduction كالي لينكس وبرنامج لقصة مايو ethical hacking tool إنه صورة قلنا ويا si fududna aad u baran kartid si fududna aad u isticmaali doontid toolkiisa adigoo vulnerability-ga network-nada amba systemka tijaabinaya meeluhu ka liito amba laga soo ataagi karo baranaya waxaana wanaagsan mar labaad ku soo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution dhammaantiin daawadayaal aad iyo aad waad mahadsantihiin sidaad ugu xidhantihiin channelkayga Somali Technology Somali Technology Solution barteena YouTube-ka iyo Facebook-ka TS oo laga soo gaabsay Somali Technology Solution insha Allah subscribe-kana ka iloobin haddii aad ku cusub tahay siina faafi si ay dadka kale uga faa'iideystaan beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah waxaan u gudagalna markaas introduction way qaybtani waxaa soo socda isagii oon installation ku samaynano oon toolkii isticmaalano ayaa inoo soo socda hadduu ilaahay insha Allah dhawaan introduction the Kali su'aalaha la isweydiiyo waxa kamid ah muxuu yahay Kali what's the Kali Linux Kali Linux waxa weeye waa tool amba free software loogu talagalay in lagu testeeyo amba lagu tijaabiyo network-ga inay tahay mid secure amba la jabin karin ama meelaha ay ka liidato lagu testeeyo oo lagu tijaabiyo. Should I use Kali Linux? Ha, waa free software, open source way, waa bilaa lacag, free ayaad ku isticmaali doontaa. Which email should I download? qaybteen soo dejistaa. Waa su'aalaha la isweydiinayo. Downloading Kali waa kala duwan yahay. waan u soo geli doonaa gudihiisa qaybo waxa jira USB ayaad ku samayn kartaa VMware baad ku soo dejin kartaa computer caadi aad ku shuban kartaa mobile powerful ayaad ku shuban kartaa qaybahaasi ayaan kaga hadli doonaa casharada qaybaha soo socda Kali default ayaan isna kaga hadli doonaa okay VMware in Kali Linux VMware haddaad rabtid Kali Linux inaad ku shubtid adigoo Kali haysta VMware oo ku install garaysan computerkaaga haddaad rabtid inaad ku shubtid waad samayn kartaa taasina iyadana okay sidaana waad samayn kartaa haddii aad rabtid Kali inaad ku shubtid maxaan ku idhaa computerkaaga okay marka aan ku soconno how to install Kali in VMware Kali sideed ugu shubaysaa VMware-ka amba aad ugu dejinaysaa taas weey maanta taan rabno inaan ka hadalno Kali ayaan rabaa inaan ku shubo computer okay VMware ku jiro VMware virtualization waxa weeye waa software loogu talagalay saad hore u soo aragteen qaarkiin haddii aad ku cusubtiina waxa weeye software loogu talagalay in computerka lagu shubo oo lagu shubo Windowsyo fara badan oo wax ku tijaabisid haddii aad haysatid computer support garanaya
virtualizationka. So haddaad rabtid inaad hubisid virtualizationka computerkaagu inuu support garanayo, waxaad fiirinaysaa waxaad tegaysaa BIOSka marka sida loo tagana waxaan kaga soo hadnay committee A+, YouTube-keena ayay ku jirtaa, qaybahana fiiriya, halkaas ayaad ka fiirinaysaa inuu support garanayo kale. Installation VMware in Windows 10. In Windows 10 ayaan ku tijaabin doonaa haddii la yiraahdo, iyadoo lagu shubayo VMware in Windows 10 ayaan idin tusi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. Siyaabahan marka ayuu egyahay marka VMware lagu shubo Windows 10, kali inside VMware gas VM amba virtual ayaa laga soo virtual machine ayaa laga soo gaabsan. Marka qaybtan aan halkan ku haynaa maanta halkan uga jeedin home VMware workstation pro way waa kii lacagta ahaa, laakiin trial wuxuu ku siin karaa bill mid kale oo waxa jirta player oo isagana la soo dejisto, kuwaas ayaan ka hadli doonaa. markaad install garaysid qaabkan ayaa ku soo baxaya. marka ugu horeysa marka create kaas ayaa dooranaysaa virtual machine, create a new virtual machine. haddii aad hore haysatana waxaad leedahay open machine. okay, haddaad mid remote aad ku xidhan tahayna waxaad dooranaysaa connect to a remote server. okay, kasii gudubna markaas qaybta labaad markaad tidhaahday next waxaa kuu soo baxaysa sidan, welcome to new virtual machine wizard. kaas ayaa kuu soo baxaya. waxaad dooranaysaa typical recommendation, isagaa kuu dooraya kolba automatically intaad rabtid, laakiin custom ayaad samaysaa amba customize adigaa dooranaya kolba hardwarada aad gelinaysid. so inta badan customize ayaa la doortaa. hanuga sii gudubna markaa ka ku xiga waxaad sii dooranaysaa kuwan ayaa kuu soo baxaya markaa softwareka aad rabtid markaad doorto. example kan workstation 8 halkan ay haddaad doonaysa inaad u noqotay xaggan aad ka dooranaysa. markaa waxyaalaha capability productiga oo qaado o dhan halkan ayay ku qoran yihiin. workstation 15 haddaan ka kusii xiga xaggana wuxuu kugu tusayaa limited memoryga la gelin karo. haddaan kusii next sii tiraadid meeshan ayuu ku geenaya. halkan waxaad dooranaysaa gas operating system installation, programka aad rabtid inaad install garaysid ayaad halkan ka dooranaysaa markaas. okay, programka aad rabtid inaad install garaysid use ISO image adiga ayuu soo gashanaya oo soo download garaysay ayaad halkan ka dooranaysaa. browse dooranaysaa, meeshuu yaalla ayaad ka dooranaysaa. markaa haddaanad haysan markaa waxaad doonaysaa I will install the operating system later. okay, kadibna waxaad odhanaysaa next ayaad sii odhanaysaa. next markaad tirahdid wuxuu ku geynayaa qaybtan. wuxuu leeyahay select operating system, dooro operating systemka aad rabtid inaad ku install garaysid. so maxaad dooranaysaa? waxaan dooranayaa anigu amba waxaad dooranaysaa adigu gas operating systemka aad rabtid inaad ku shubtid. ma Microsoft Windows ayaad rabtaa inaad ku shubtid workstationka, mise Linux, mise VMware, ESX amba wax kale. maya Linux baan rabaa. kadibna waxaad kasii dooranaysaa Debian 10.x 64-bit ayaa doonaysaa. 64-bit iyo 32-bit waxaan kaga soo hadalnay committee A+ ku jirta YouTube-keena. marka haddii aad fahmayn halkaas ugu noqo. next baad oranaysaa. next markaad tirahdid waxaa kuu soo baxaya sidan virtual machine name. waxaad dooranaysaa magacii virtual machineki aad rabtay inaad samaysid, magaciisii ayaa dooranaysaa. kadib markaad magaca doorato waxaad doonaysaa locationka aad rabtid inaad degtid. locationka ayaa dooranaysaa. browse baad oranaysaa. locationka ma desktopka, ma my documentba, ma ada hard drive aad rabtaa inaad ku save garaysid, waxyaalahaas ayaa dooranaysaa haddana. kadibna next baad oranaysaa. next markaad tirahdid halkan waxaad ka dooranaysaa
virtual machine wizard wuxuu ku tusaya specify number of processor of this machine. maskax intee leg ayaad siinaysaa. number of processor 2 ayaan siiyey. total processor core aad haysatid ayuu kuu sheegayaa. 4 baad haysataa. 2 haddaad siisid macnaha wuu kasii dhaqso badanaya. next haddaad tirahdid wuxuu ku doorasiinayaa inaad dooratid waxa loo yaqaano memoriyada. memoriga markaa computerka ku jira always iska fiiri. always maxaad fiirinaysaa memoriga ku jira computerkaaga. haddii computerkaaga ay ku jiraan memoriya aada u sareeya oo fara badan memory fiican si imiga computerkan hadda example ahaan waxaa ku jira 64 bit gigabyte ayaa ku jira kasoo qaad. markaa waxaad dooratay 2 gigabyte. 2 gigabyte waxay u dhigantaa 2048 megabit ayay u dhigantaa. kadibna waxaad doonaysaa next markaad tirahdid halkani waa very important. halkani waa meeshii network tape-ka aad kaga xidhmaysay. network tape-ka nooca doonaysa network connection-ka use bridge. dad badan inta badan waxay doortaan bridge macnaha wuxuu la wadaagayaa interface-ka computerkaasi internet-ka uu ku tago. interface-ka computerkaasi uu ku tago internet-ka amba wireless-ka amba haato waxa uu doono hado kaas ayuu la wadaagayaa. kaas oo aad iyo aad ugu fiican. dadka qaarkoodna waxay doortaan use a network address translation NAT dooro. NAT-kuna isna waa translation ayuu siinay IP address kale. dadka qaarkoodna waxay isticmaalaan host only networking. option kale ayaa jira do not use a network connection. kan weligaa ha isticmaali. labadan baa ha isticmaalin. labadan sare midkood ayaad isticmaalaysaa. okay haddana halkan waxaa la dooranayaa select input output controller tapes ayaa dooranaysaa halkan. halkan waxaan dooranay waxaad dooranaysaa halkani controlaha ku xidhan input outputku muxuu noqonayaa recommendation buu ku siinayaa. ka ugu horeeya always dooro ayuu ku leeyahay. okay ka ugu horeeya dooranaysaa. kadibna waad ka soconaysaa next baad odhanaysaa select disk. hard drive-ka ayaa dooranaysaa. hard drive-ka markaad dooratid what kind of disk do you want to create. IDE committee plus ayaan kaga soo hadalnay waa noocii hard drive-yadii hore. waxaa jirta mid la yidhaha SCSI committee plus baan kaga soo hadalnay. SATA ayaa jirta. SATA VME mid la yidhaha baa jirta. so SCSI recommendation ku ina siiya ayaan iska qaadanaa. SCSI recommended taas ayuu inoo doorbiday. okay markaan hard drive-kii doorana haddaba waxaan sameynayaa create a new disk virtual disk. hard drive-kii ayaan sameynaynaa markaas. hard drive-kii ayaan sameynaynaa hadda. so create hard disk markaan idhaahdo waxaan leenahay next. next buu ina geynayaa. next markaan nidhaahno wuxuu ina geynayaa disk size dooro buu ina leeyahay. size isaga mid automatic ku dooro laakiin adigu ka saxda ah dooro 8 gigabyte wey lambarkaasi. okay so 80 gigabyte adigaa dooranaya marka. recommendation Debian waxaa la doortaa ilaa 20 waa inuu ahaado iyo wax ka sareeya. halkan su-aal buu ku weydiinayaa fileku si uu u dhib yaraado siditaankiisu wuxuu noqonayaa optionadunu ku weydiinayaa. marka split virtual disk into the multiple files. faylal yaryar ayuu ka dhigayaa. kana hal file oo isku dhegan buu ka dhigaya. so inta badan mid of these ayaa dooranaysaa kii ku fiican. split disk is make easy to move the virtual machine on other computer but may be reduce performance with the very large disk. so wuxuu leeyahay waxay easy ku tahay tani haddaad doonaysid virtual machine kana aad samaysay haddaad computer kale rabtid inaad hadhow ku isticmaashid qaaditaankeega ayaa ku dhibana. markaad saa samaysid waxaad leedahay next markaad samaysid virtual machine-kii wuu kuu sameeyey. magacan uu kuugu bixiyey. file name-ka meeshu kuu dhigay ayuu ku tusayaa. Kali Linux VMware virtual machine disk ayuu ku sameeyey. browserka haddaad doontood bedelaysaa laakiin wuu ku tusayaa isaguna.
Okay, next balansa. Next markaad tirahdid wuxuu ku tusayaa summary create a virtual machine, wuxuu ku tusayaa information key wixii aad dooratay hardware-da wixii oo dhan. So name kaad u bixisay computerkaasi Kali Linux baad u bixisay, location-ka home Kali Linux VMware meeshaas ku geeyay, version-ka isticmaalsa workstation 8 and operating system-ka waa Debian 10x64 bit ayaa dooratay. Hard disk size-ku waa 80 GB, memory-ga waxaad dooratay 2 GB, network adapter-ka waxaad dooratay NAT, and other device-ka CPU waxaad dooratay CD drive, USB, controller, printer, waxaas iska dooratay automatic usoo bixin kuwaasi. Halkan waxaad oran kartaa haddaad rabtid inaad wax ka bedeshid customize hardware waad oran kartaa, and optimization power on the virtual machine after creation waad oran kartaa. waa finish baad leedahay markaas. finish markaad tirahdid page-kan ayaa kusoo baxay, wuxuu ku leeyahay success virtual machine created successfully, you still need to install operating system. operating system-kii ayuu kaa rabaa inaad ku install garayso, wixii kale uu dhamaystirmay. close baad leedahay. kadib markaasaad tirahdid operating system-kii ayaad ku install garaynaysaa. cashar kale insha allah ayaan ka samayn doonaa anigoo ku install garaynaya, laakiin hadda waxaan tusay step by step sida loo doorto mid iyo mid, step by step hal ayaan kuu tusay amba si aad keli u aragtid. marka haddii aad rabtid oonad jeclaysan virtual machine markaad samaysid inaad rabtid inaad wax ka bedeshid, waxaad doonaysaa edit setting ayaad tegaysaa, kadibna meeshan ayuu ku keenayaa. so waad iska bedeli kartaa markaas haddii aanad rabin waxyaalaha qaarkood. so edit virtual machine setting haddaad ku dhufatid kuwan ayaad wax ka bedeli rabtaa. okay, markaad intaa aad ridaadid ka bedel meeshan ku geenayaa adigaa raba markaa waxyaalahaad rabtid inaad ka bedeshid. let's say printer uma baahni, remove baad iska odhanaysaa. waxaad kala odhanaysaa waxyaalahan aad u baahnayn ayaad remove iska odhanaysaa. haddaad wax kale aad rabtid inaad kusoo dartid USB 3 for example, halkan aad ku dhufanaysaa USB 3 baad odhanaysaa. kadib waxaad odhanaysaa save and always define statics connecting to the power, waa inuu powerka ku xidhnaado always xaggaas dooro. kadibna waxaan leeyahay save. for example haddaad USB aad rabtid inaad kusoo dartid USB 2 amba USB 3 amba aad rabtid inaad iska tuurtid, add iyo remove mid kamid aad dooranaysaa. kadibna waxaan odhanaysaa save. haddii aad rabtid display detector use host setting monitor ka kugu xidhan ayaa isticmaalaysaa. accelerated 3D graphic haddaad rabtid inaad kusoo dartid, saas ayaad kolba mid ugu soo daraysaa. kadibna power on ayaad odhanaysaa. xaggan waa powerka meesha laga shidayay, halkan waa shutdown. power options marka ku dhufatid intan oo dhan ay ku tusaysaa. marka waa very important inaad taqaanid waxyaalahan navigation-kiisa. haddaad xagga enter full screen mode after power on wuu ku weyneynayaa, close after power off, suspend, report battery information request. so calaamadan haddaad aragtid waa shutdown the gas, computerka gaska waxaa loo yaqaana computerka VMware ku shaqeynaya. calaamadaas waa suspend, calaamadaasi waa start, calaamadaasi waa restart. markaa safe baad odhanaysaa. waxaa kaloo jira sharing folders. folder haddaad rabtid inaad sharing computerkaaga caadiga iyo computerka gaska hadday share garaynayaan folder waad samayn kartaa isagana. so waxaad leedahay shared folder ayaad tegaysaa. enable baa always enable taasaad doonaysaa. haddaad rabin disable baa odhanaysaa. that means waxay ka dhigan tahay file ayaad computerkaaga caadiga inta kasoo qaato aad dhex geynaysaa gas machine-kaaga ama computerka VMware-ka ku shaqeynaya. okay, waxaan kaloon baran doonaa oon practically inii tusi doonaa VMware tools featureska sida loogu soo dhalangareeyo. let's say computerkaagii ayaad rabtaa inaad ku install garaysid VMware tools si uu la shaqeeyo oo u isticmaalo computerka caadiga ee computerku caadiga ay isticmaalaysaa sidoo shaqeeyo driverskiisa oo kale. kan ayaad soo dhalangareyn doontaa, waana tusi doonaa kan insha allah. cashar kale oo waxaynu tusi doonaa making
Kali bootable USB drive adigoo Kali ku sita USB oo kugu diyaartahay USB adigoo ku sita Kali drive oo kolba meesha adduunyada ka joogto la tagaya na waa la samayn karaa. So marka image-ka jeceshahay aad dooranaysaa window-ga sida loogu shubo programkan isaga laftiisa practical buu u baahan yahay. USB-di waa inay 4 gig iyo wax ka badan ahaato. marka programkan ayaad isticmaalaysaa ETCHER ay ku qoran tahay linkkaas ayaad ku dhufanaysaa amba waxaad doonaysaa kala yidhaahdo Rufus bootable USB oo isagoo kuu shaqeynaya. marka hore soo downloadaysaa kadib programkan aad samaysanaysaa kadib mid kamid ah dooranaysaa USB drive-kaaga markaa ayaad kusoo download karaysaa. halkan waa meeshii USB drive information badan ayaad ka heli doontaa. haddii aad isticmaalaysid markaa minimum wayna ahaato 4G USB-da isticmaalaysa iyo wax ka weyn. SD card waad isticmaali kartaa. okay so image-yada aan soo sheegay haddii mid kamid ah isticmaalaysid flash drive ayaad isticmaali kartaa. programkaasi markaa isaga ayaa ku dhisaya bootable hard drive. okay qaybtan waxaa ka sheekeynaysaa sida Mac loogu sameeyo bootable USB drive. qaybta hore window bay ahayd. so all of them waa similar. waxaan rabaa inaan ka hadalno markaan rabno inaan sameyno. okay USB boot in VMware. so VMware ayaad ku xidhi kartaa. create a custom virtual machine then continue waad odhan kartaa. kadibna debiankii ayaa dooranaysaan hore usoo dooranay oo markaad doonaysa inaad ku install garaysid. kadibna waxaad doonaysaa UEFI kaasaad doonaysaa. kadibna next ayaad leedahay. choose a virtual disk ayaad doonaysaa. create a new virtual disk haddaad rabtid inaad mid samaysid. kadibna waxaad leedahay finish. kadibna waa dhameeyey. insha allah casharka ku xiga wuxuu noqon doonaa anigoo sameynaya practical oo aad i raaci doontiin step by step. qaybtani maanta waxaan ka hadlayay procedure-ka amba wayga aan u sameyn doona hadduu ilaahay insha allah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. insha allah subscribe-ka ka iloobinaya comment-ka. su-aalo waxaad qortiin qabtiina isoo qora. waxaa su-aalo isoo weydiiya su-aalo insha allah. intii karaanka insha allah way niga soo jawaabaya. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.